الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. caawana walaalayaal waxaanu ka hadli doonaa qeybtii ugu dambeysay oo afarta qaybood oo laga dhisayo qofka oo ahaa dhinaca dhaqaalaha. marka dhisidda dhaqaalaha qofka waa shay muhiima qofku inuu dhaqaalo yeesho, maxaa yeelay haddaad dhaqaalo beeshid waxaad noqonaysaa qof burbursan. hadal ay soomaalidu yidhaahdaa baa jira, maal waa la helaa waana la waayaa. waa hadal aan macno weyn ku fadhin. carabtu sidoo kale waxay yidhaahdaan maanta wixii jeebka ku jira cun, berri waxeedaa imanaye. iyaduna waa hadal aan xikmad saas usii duugnayn ay ku jirto, macnaheedu uu yahay dhaqaalaha muhim maaha, waa iska imanaya. taasuna shay saxa ma aha. midda ugu horeysa oo dhaqaalo markaynu ka hadlayno waxa weeye inuu qofku noqdo qof shaqaysta. shaqo ceeba iyo shaqo fiican iyo mid xun ma jirto. waxaa muhima inaad shaqaysatid. haddii aad shaqaysatid qof karaamadaad noqonaysaa oo mujtamaca iyo dadka aad ku dhex nooshaa qiimo kale. haddaad mashaqaysto noqotona haddii shaqadaadu waxay noqonaysaa inaad dadka baridid oo aad shaxaadid. qofka looma baahna, xataa diinteennu ma ogola inuu qofku dadka shaxaado ama bariyo hadduu yahay qof shaqaysan kara. qofkii saas yeelana adduunka waa uu ceeb, aakhirana wuxuu imanayaa isagoo wejigiisu uusan hilib lahayn. waxaa kaloo iyadana muhima in wixii ku soo galo oo aad shaqaysatid aad kala qaybisid. qeyb adigu aad isticmaashid, qeybna aad dad siisid oo sadaqaysatid, qeybna aad dhigatid. saasaa tawaasunku u yahay dhaqaalaha. weliba waxaa la yidhahdaa 10% waxa ku soo gala waa inaad dhigataa. 10% waxay ku soo gala waa inaad dhigataa. xikmad baad waxay odhanaysaa qofkii waxa uu isticmaalo ay ka yar yihiin waxa soo galaa, xikmad aada u weyn buu haystaa. xikmad aada u weyn buu haystaa. sadaqada yaad siinaysaa. horta sadaqa waxa ugu horeeya zakada oo maalkaaga ku waajibtay waa inaad bixisaa. maalkaa ku barakoobaya say culimmadu ay ina bareen. sadaqo kalaa jirta oo aan zakadii ahayn oo lagaa rabo iyadana. weliba waxaa jira dad oo kugu waajibo nafaqadoodu, dadkaasaad ku bilaabaysaa. kuwaasaa fadli badan. sidii lagu kala xigo qaraabo ahaan iyo ahl ahaanna sadaqadu waa uga sii kale fadli badan tahay, oo qofba qofku kaa xigo inaad sadaqada ka siisid. leanna waxay noqonaysaa sadaqo iyo waxay noqonaysaa xiriirin bay noqonaysaa. ogow marka sadaqada meesha aad ku bixinaysid. tan kale waxaa la yiraahdaa waa inaa qofku uu shaqaystaa oo dad u shaqeeyaa. matalan waa inuu dad u shaqeeyaa. maceebbaa mise wax fiican? waxa la yidhi waa laga fiican yahay inaad dad u shaqaysid, maxaa yeelay waa addoonsi baad ku jirtaa. waxaa wanaagsan inaad adigu nafsadaada aad u shaqaysatid. laakiin taa lagama bilaabi karo, xikmad maaha. waxba ma haystee maxaan ku shaqaystaa? marka hore waa inaad dad u shaqaysaa, laakiin adoo og inaad darajada inaad ka gudubtid. sidaas waxa qaba taariq suwaydaan ninka la yidhaahdo oo khabiirka ah. ha noqonin markii maal aad meel dhigatid sidii habartii lacagta ku guratay sanduuqa oo iskaga guri jirtay oo ku guri jirtay oo ku guri jirtay ilaa lacagtii dowladdii ay bedeshay. maalintii dambe lacagtii ay la soo baxday la yidhi lacagtan eedo raalli ahow, lacagtaan uma socoto, waa horaa la bedelay. maxaan taa ka wadaa? waxaan ka wadaa lacagta ama maalka aad dhigatid yuusan fadhina, ha kuu shaqeeyo. waa inaad tijaaro gelisaa, bayac mushtari gelisaa, ama waa inaad gashataa wax hanti maguuraana sida guryaha oo kale. marmarka qaarkood waxaad u baahanaysaa inuu qof kugu tijaareeyo lacagti oo adigu aadan tijaaradii waxba ka aqoon. taas hadday danta kugu khasabto, qofkaa 2 shay baad ka eegeysaa. shaqada aad u dirsanaysid ma yaqaana, tan kale qof ammaano le ma yahay.
labadaa markaa ka eegtid hadduu labadiiba ku fiicnaado waad u dhiibi karaysaa maalkaaga. waxaase soomaalidu ay ku mahmahdaa ninkaad kaba ka tolanayso kabihiisaa la eegaa. kaad nin isaguba tijaaradii faashil ku ah oo lacagtii khasaariye ummadda iyo tiisii walaaloo noogu tijaaray markaad tiraahdid hadda meel buu kaa tuuraya. mideeda kale hal ogow walaal, tijaarada cidna kuma dhalato oo maanta yaan lagaa bajin maya tijaarada adigu ma geli kartid, ha maqlin warkaa iyadaa. tijaarada tartiib baad u bilaabaysaa, jaranjaradana hoos baad ka soo fuulaysaa, waadna baranaysaa biidni illaahi tacaala. waxaad kalood ka faa'iidaysanaysaa khaladaadka aad geshid baad saxaysaa maalin walba, oo wixii hore u socon waayey ma aadan ku noqonaysid. haddana haddaa wax garan weydo waa inaad dadka aad aqoonta ku filayso wax weydiisaa, laakiin dadkaasu nafsoodu waa inayan ahayn dad xaasid ah oo ku necab oon khayrka kuu rabin. haddaa rabtid dhaqaalahaagu inuu koro walaal deynta iska ilaali. deyntu waa wax aada u xun, deyntu waa wax aada u xun oo ku baabi'inaya. marmarka qaarkood deyn baad cunaysaa, waxaad u malaynaysaa inaad fiican tahay, hadhow baa lagu qabsanaya, xabis baa lagu geynaya. marka deynta iska ilaali. deyntu adduunkana ma fiicna, aakhirana ma fiicna, oo axaadiis nabiga caleyhi salaatu wassalaam oo arrintaas reebaysa ayaa jirta. sidoo kale waxyaalaha lagaa rabo sida ijaarka gurigaaga, korontada, taleefonka, biyaha, waxyaalahaasoo dhan waa inaad iska bixisaa midba miday ka horeyso mar alle markay kuu timaado. sababtoo ado intaasoo koronto lagugu leeyahay, biyo lagugu leeyahay, deyn lagugu leeyahay, xoogaana haysta ad u malaynaysaa xoogaagaan adiga ma lihid, xoogaagaan adigu ma aad lihid. mideeda kale waxaad iska ilaalinaysaa kaararka la yihahdo credit card ama bitaaqaat li'timaan la yihahdo, bitaaqaat li'timaaniya, lianna waa tuug jeebka kuugu jira. tuug jeebka kuugu jira weye, adaan isogeyn baa wax ku gadanaysaa, hadhow baa waxaa kuu imanaya iyadii iyo weliba ribo la socota. sanad kasta waxaa lagaa doonaya inaad tira koobtid hantidaada, maguurtada iyo midda maal iyo mood wixii aad haysatid. sidoo kale isqiimay, sanadkii hore xaggee baa dhaqaal ahaan joogtay, sanadkan xaggee baa joogtaa. ma waxaa rabtaa inaad meeshaadii fadhidid haddaa faqiir tahay, xataa faqiir maanta aad tahay, intee sanaa rabtaa faqiir inaad sii ahaatid? waa inaad faqiirnimadaas aad uga bixi lahayd, khudadeedii aad la timaadaa iyo muxuu aha balaankeedii. haddii intaad wax gashid oo wax samaysid oo shaqayn weydo, dariiqada bedel. walaal lana tasho qofku dhaama oo aad wax ka faa'iideysid, daacadna ku ah. sidoo kale waxaa kalood walaal la doonayaa inaad ilaahay barisid inuu kugu aadiyo dariiqaad ku faa'iideysid, isaga aad ku kalsoonaato, kadibna nafsadaada aad isku kalsoonaato. ha oranin hebel baa i khasaariyey, hebel baa saa i yeelay, ee mas-uuliyadda qaado. haddaa khasaartid aqbal. horey waxaan usoo baranay qofka waxa ku dhacaya inuu isagu sabab u yahay, oo waxa ku dhacaya ilaahay ku abaalmarinayo. markii wax dhibaata kusoo gaaraanna waxaa lagaa doonaya inaad sabar iyo adkaysi aad yeelatid. khaladaadka aad ku dhacdid oo xagga dhaqaalaha ama dhinac kasta ah wax ka baro, sayan mar dambe kuugu soo noqon. haddii aad guul gaartid marka walaal, oo dhaqaalaha xaggiisa aad ka gaartid guul, ilaahay subxaanahu wa tacaala ku shukri awalan, kadibna ha ilaawin dadkii ka dowr qaatay ama ka qayb qaatay inaad guushaas gaartid. saa awgeed walaal, waxaa la dooni inaadan dhaqaalaha fududaysanin, oo maalka uu noqdo waxaad ku xisaabtantid. meesha uu kaa soo gelayo waa inay meel xalaala noqotaa, meesha aad ku bixinaysidna waa meel ilaahay raalli ka yahay waa inay noqotaa, ee aysan noqon anigu xor baan maalkayga u ahay. waa kaasay oran jireen qowmi Shucayb oo kale. ma waxaad nafaraysaa inaan ilaahay keyrkiis aanaan caabudin, aan maalkeenana waxaan doona aanan ku samaynin? waxaa la dooni maalka inaad u isticmaashay si ilaahay raalli ka yahay. intaas ayaan caawa kusoo gabagabeyneynaa arrinta dhisidda dhaqaalaha. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.